weygii ugu horeeyaan rabay aroos iyo farxad iyo reereyn iyo qalbi gelin inaan la kulmo ayuu qolka iiga jiray oo fadhiga u guuray waxaana igu dhacay qalbi jab aad u weyn iyo murugo iyo ciil aad ayaan u shalaytamay. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. waa idin salaama qayrta sharafta leh meel kastood ku sugantihiin nimciyo baraara ku waara ugu horreyntii ku salliya suubanaheena xabiibkeena Muhammad sallallahu alayhi wasallam. maalin wacan iyo habeen wacan waqti kasto ay ku tahay baa ku wacnaadan ku leeyahay caafimaad baanan idin wada rajaynayaa. haddii aad nagu cusub tihiin subscribe noo saara gambaleelkana furta si idin soo gaaraan casharada quruxda badan oon halkan ka soo tabino. intiina horey noola joogtay idin lama ballamaayo. waa taqaanaan shaqadiina qabsada shargareeya oo lay gareeya oo commentigana dhiirigelin buu noo yahay. aragtidiina ku cabira gabadhaasna la soo taliyo una soo duceeya. waa qaybtii labaad waa qaybtii saddexaad halman hadal kuma jiro ee qisadeena gabadhii dhibanayd ee Soomaaliyeed ee tira qisadeeda la wadaag shacabka Soomaaliyeed hana ay soo duceeyaan hana ay la soo taliyaan. qaybtii nala socotay qisadeena qaybteedii labaad iyo qaybteedii koowaad waxay noo mareysay iyada oo gabadho qaab abuurkii Ilaahay u sameeyay iyo maaragtay dharka ama ballaarka ama dhinac walba haatay qaabkii Ilaahay u sameeyay oo ninkii dhaliilay una ku qanci waayay qaab abuurkii Ilaahay iyo gabadhii uu hore u calmaday. halka xaaladdu markay marayso waxa dhacay wixii hore waa la iska iloobay, reer baa la noqday, family baa la noqday, waa la degay. 7 bari markii la joogay ama hal week la joogay ayaa waxa dhacday in uu fadhigay u guuray oo qolkii iga haajiray oo noqonay 2 qof oo darisa oo aan dabka kala qaadan, aan iska warqabin, aanan isbariidin, isna salaamin. runtii subaxii shaqadiisa ayuu aadaabay tiray. habeenkii shaqadiisa markuu ka soo hoydayna oo uu yimaadana cunto haddii aan u kariyo cuntadaas uu cunaa. kadib markii uu cunteeyana qolkii fadhiga oo uu deganaa ayuu u galbadaa oo fadhiga ayuu ku seexdaa. qolka fadhiga ayaa u ah qolkii jiifka, anigana qolkii jiifka ayaan keligay ku ahay. qolka linima waa qolkii aan ka soo tagay, waana qolkii aan kaga soo baxay in aan lamaana yeesho oo aan cidlada iyo kelinimada kaga baxo. laakiin nasiib darro waxaan la kulmay kelinimo kale oo mar labaad isoo wajahday iyo qalbi jab aad u daran. waxaan sidii ahaanaba wax aanan salaanta iska qaadinba aniga arrintii waa yaabay, waan fahmi waayay meesha wax ka socdaan. waxaan isku dayay inaan la hadlo oon wax ka dhaadhiciyo oo iraahdo maxaa jira, xaggee qaladku ka jira, maxaad iga tabanaysaa. laakiin aaway horta shidan ayaa ku jawaabahaya. haddii aan la hadlo wuxuu ii leeyahay kumaan caayin, kumaan aan cadaabin, cunto meel walbay taal gurigaas, haddii wax baahi haddii ku hayso ii sheeg, haddaan dhibaato kale kugu hayo ii sheeg. aniga tan waxa weeyaan waa dhaqankayga iyo dabeecadahayga. aniga ayaa degay anaana ku qanacsan markii aan maaragtay hobbigayga ka helo ama ay aniga iga soo godo inaan qolkaan imaadana qolkaanan imaanaya. inta kalena walaali sida aan isku amaansiino wax dhib oo culays haddii aan kugu hayana ii sheeg. runtii aad ayaan u murugooday, xanuun badan baan dareemay. waxaan qaban kara malahan, lacag iyo dhaqaale ma haysto. tigidhka haddii aan bedelan lahaa oo aan iska laaban lahaa. nasiib darro haddana waxay igu dhacday in aan walac noqday oon ur yeeshay oon aad u tacbaanay oo walaca xanuunkiisa iyo niyad jabka iyo dhibaatada kale meeshaan ugu haysata ay isugu kay darmadeen oo noqday qof sariirta saaran, qof aan cunto cunayn, qof qalbiga ka jabay, qof maalin iyo habeen murugaysan. salaada subaxda markii la tukado ayuu shaqadiisa aadaa. 12 maalinkii ima soo waco, ma dhimatay ma nooshahayna ima soo dhaho. wax ma cuno, wax ma cabo, daris ma aqaan, dadna ma aqaan, cid iyo ciirsina meesha iima joogaan. meesha ayuu gabalku igu dhacaasan uma tagahayo, marna qandha ii hayso oon u deedanahay. marar ayaa waxaa dhacda in aan biyaha xataa soo qabsan waayo. sidaa xaaladdu waxay ahaataba markii muddo 3 bilood ku dhow aan sidii ku jirnay oon si walba kor iyo hoos isugu dayay in aan ninkaan ka dhaadhiciyo waxa qaldan. ayaan go-aan gaaray. go-aankii aan gaarayna wuxuu ahaa in aan furiin ka dalbado oo aan wadankayga ku laabto, maadaama aan wax wajiya meeshii ii olin. nasiibkayguna uu noqday in aan dhibaatadan la kulmo, aadna aan uga shalaayay runtii barashadiisa iyo gurkiisiba. subaxyada ka mid ayaa waxaa dhacay isaga oo meel agtayda fadhiga aan soo fariistay dhinac kaga fadhiya ayaan waxaan ku yiri inaan kula hadlaan rabaa. marka ayuu wuxuu yiri waa ku soo laabanaya. qubays ayuu galay inuu isdiyaariyo. markii uu isdiyaariyay aniguna aan sugayo inuu ii soo laabto oo aan la hadlo ka dalbado walaalow in aad warqadayda siisaan rabaa, maadaama nolosheeni aan nahay dad aan is anfacayn ama aad ku qanacsanaan laadahay qaabkayga iyo ma fahmin, yacni calaashan waan fahmi waayay bay tiri wax meesha ay arrintu ka qaldantahay. qof aan waxba u dhimin kaciyo kirdhihin
caayin oo cadaabin oo kula dagaalsan asagana aad marti u tahay aad bay runtii u dhib badan tahay oo xanuun badan tahay marka ayuu wuxuu igu yiri bay tiri okay waa wada hadlaynaa waa ku soo laabanayaa wuu isa soo diyaariyay markuu isa soo diyaariyay ayuu wuxuu damcay bay tiri inuu mobilkiisii oo fadhiga u saarnaa uu qaato kadibna waxaan irbay tiri ma dhaqaaqaysid ila hadal adig ayaan ku sugaya meesha maanta oo dhan ku fadhiyaa naga tag buu yiraahdo nagu dhigni oo uu dhaqaaqay anigana marka ayaa bixis igu dambeysay oo waan ka dabahaaday waana ku soo dhigay waxaan ku yiri maanta inaad idisho iyo inaad warqadeeda siiso maahane wax ka dhaxeeya oo meeshan ka soconaya malahan warqadeeda si Allah duuyaad qof islaam tahay iska kayfur ayaan ku iri